wiil yaroo garaad wacan gacantiisa furan tahay marka gacal wadaagta hadduu calafka ku galo guur wacan ku doontee so isku soo naqad wanaagsan mar labaad ayaan idin leeyahay maanta tolo maxaa soo socda waa isweydiinaysaan horta isku nixina romantic ma hadli rabo maanta oo isliina wax kale tuma soo sheegi doontaa so horta maanta romantic uma soo socdo meesha iga joogaa laakiin se maanta waxba idin faa'iideena siiba ragga iyo dumarkaba inkastoo ragga ay u badan yihiin oo wada ogsoonahay de yaan la isku qarinine maanta waxaan ka hadli rabaa aniga iska bilaabe gurdo markaa tahay waxa fiican way gurdo guurkaad u raadsan kartid inay ahaato wada qurux badan example markaa qof aad aqoonin baqtiyo nasiib ugu darsatid aragtida koowaad ama ismaqalka koowaad xushmad kala kulmayst yaa waay maxay iga soo wactay balaa lagu weydiinaya waayo ma istaqaanin mogta laakiin markaa meel ay idinka dan kaliya wada socotaan ku wada kulantaan waa isqadirinaysaa qofka kale si ixtiraam loo hadla talo waa meeshaas hadal idinku daalimaaye maanta waxaan idin wadaa wax qeyr qaba idinkana bil qeyr ila dhahay so maanta waxaa jiro dhalinyaro Soomaaliyeed oo horta markii hore waaga Soomaaliya joognay dhalinyarada isu sheeg waa la iska soo horjeeda xaafadaha telefoonada iskala hadli jiro waa la isku imaan jir laakiin hadba ninba meel u jooga ninba meel wala kala firdhisan yahay saaxiib meel islama joogo wadan iska daa qaaradna warkeeda daaba waryaani ku daalin mar haday saas tahay meesha joogtina example hada meesha jooga Soomaali ma joogto soo sida wiil Soomaaliyeed ku hela Facebook-geena kuma qori karaya guursanaya kuma qori karo yeeso shaaninta video iska soo duubay guursanaa ma dhigi kara laakiin aba wixii raadiyay sirar magaalnimada u raadi soo waxa jira website la dhahayo guur.net allaha waa website dhalinyarada Soomaaliyeed gurdoonka ay isugu yimaado waliba ma ahan website qof si ciyaar u isaga diiwaan geliya asoona gurdoon kale heen waa wada ogsoonahay gurdoon waa nahanay rag iyo dumarba macna in la iskuursado dunida wax loo joogo xataa wax walba sameey waxaan baranayaa guriyaan dhisana wasqasana hadalkaad wuxuu ku soo koobmay laba eray oo ah waan guursan doonaa waana dhiman doonaa so dhimashada anaga ma ogin meesha ugu hagaagan laakiin guurkaaga meesha ugu hagaagilad waa ina ogaataa haddaadan hore ogeyn hadda anaga ku sheegay iga faa'iideyso website-kaas waa website guurnad la dhahayo dhalinyarada Soomaaliyeed gurdoonka isugu hagaagto haddii aad rabtid inaad iska diiwaan geliso aniga xitaa waa joogaa meesha so yaalii ka soo hormarin haddii aan ahay dooqaaga website-kaas waa iska diiwaan gelin kartaa waa guur.net ayaa laha waa iska diiwaan gelin kartaa dhalinyaro Soomaaliyeed isugu yimaado waliba ma ahan website qof si ciyaar oo isaga diiwaan gelin karo qof walba wadaada rabtid qofka qaabka u yaalo detailskiis warbixintiisa faahfaahsan meesha ka heli kartaa so meesha inoo balana wiilasha meesha sugu wada imaanade ayo